ولا لا قاربان أخانا وحي رادن عبد السلام أي خير بان كورة جاني حلقي وحا لقاري عن تليفون كي قدمين لها كيشني ربطا يا أخي حتى من باسها دادن جين الوحاد هذا صبح أوت ميل بان وحكوصة وضعونينا ميل فاميلي استاذي دكتور عبد السلام waxaynu ku soo laabanayna barnaamijkeeni ahaa arimaha qoyska wanaagsan iyo qofka sidoo ku yeelan kara qoys wanaagsan ama qoyskiisu u horumarin kara waxaan ku soo qaadanay dhowr qodob kale oo jirta badan oo inuu dhiman yihiin ilaa iyo tobaniyo wax la mid ah qodobkan hadda waxa weeye isku tanaasulka ama xakameynta shucuurta qofku maadaama qof bini'aadan uu yahay waxa la badan oo laba qof dhaxmali karo markay gurigooda joogaan arintaasi qaabkee loo xalin karaa isku tanaasulka ama ka qayb qaadan kara horumarinta qoyska ama qoyska wanaagsan runtii si kooban waxyaabaha ugu muhiimsan oo qoyska Soomaaliyeed maanta ustaadiina looga baahan yahay way isu tanaasulka hadaanan isu tanaasulin guriga waa u burburaya guriga haduu burburana dhaawaca ugu weyn gabadha kadib iyo ninka ragaba wuxuu u gaaraa dhaawac ugu weyn dhalaanka waxa iimaanayso hooyo aaba aaway isu tanaasulka mas'ala diinta ku soo aroortay way in la isu tanaasulo labada dhinac tusaale gabdhaheena social media ayaamahan ku badan yihiin Soomaa koobka shaaha yani noo keena lagama karo yani waxaan ka wadaa ku ilaahay u barakeeyay ma sha Allah Allah xifdiye laakiin sida gaalibka Mary wadaadka u keen Mary maxaan ku yiraahdaa biyaha musqusha u geey Mary shukumaanka u soo Mary koba u titir Mary quraacda everything Mary baa qabanaysa fakaanama ina ninka Soomaaliga uu qabo Mary marka aragti iyadoo social media ku jirto ina u tanaazushida larba anda Soomaalida idaawanayso waxaan dhihi lahaa reerka waxa lagu dhaqaa hal qodob meel ha ku qortaan ustaadi adigana qoro waxa la yiraahdaa al-mudaara bimaana ina isdaqamaysid af carabiga waxa weeye yani khaladad ujeedid خلادات أو ثوابت الإسلام صلاة إني كتكتي إيو محانكو رادا إني شيشد عبسي أتكامس والعياذ بالله قبلين منا سميان وأنا ضد قبل أهل الصلاة معها وحوي وحيابها يرير السوشيال ميديا كجرتا كبا سوقات ويسوقش الدكتور هاي أوي هبلايو واحد رادا قول كاسي كجرتا أدو أجيد قولك إني تيك توك كولا جرتو oo social media ay fiirsanayso ama ninka Soomaaliga uu arko ilmihiin aan baabaska laga soo bedelaynin ama uu arkaba xataa in yani gabadhii waajibaadkeeda aysan gudanaynin waxa ugu yar cuntada kamida subaxi quraacda oo kale ragana waa inay quraac fiican oo culus oo miisaan leh ay cunaan si ay u cunaan habeenkii casho fudud intaanan maghribka la gaarin I don't know ma waxaan ka hadalnaa jimka iyo calooshoona iska ilaalin marka isu tanaasulkaas mas'alada ah gabadha u tanaasul isku day ina sujuuda ugu duceysid ilaahow ka madoobay social media iyo TikTok iyo maxay gabadha waa ina u tanaasushaa tusaale kale waxay ku tiri anigu waxaan rabaa ina Mombasa igeysid waa kana lacag badan ma haysatid you are waiter atay tusaale yar ama waxa ka shaqeysaa maxaan ku raada xafiis cargo ama waxa ka shaqeysaa NGO u shaqeysaa ama business ma dukaan budgetkii kuguma filna دين يدق وحاسوق عدد بجبدة وتنازل vacation يربطها يا أخي حتى من باسها هذا نجين الواحد هذا صبح أوت ميل بان وحكوصة وضعونينا ميل فاميلي يجرو مخايد إسلام ولا داقش دي مدينة مول إيو ميلها نوماد إيو أربن إيو ميل فاميلي يجرو شاهلا لعب يعني قبير وراعي maxaan ku iraahdaa ka sheekaysa xilliga isguursateen ka wada hadla caqabadaha haysta guurkiina marka u tanaasul waxay ku tiri ani waxaan rabaa ina xajka igeysid tusaale adi u tanaasul oo account-kaaga waxa uga soo qaad ya akhi kambeena isu sharaxaysa inta soo milyan gabadhaadii kulahayd igee maxaan ku iraahdaa umrada xataa xaj ma aha bilaa calaykum ma awoodid miya u tanaasul arinay kugu qabsato tusaale waxay ku tiri hooyaday baa rabta inay imaado Nairobi idan waxa laga rabaa gurigi kiradiisi ama hooyo anagana loo noolaanay I wish inay
hooyooyinkeena guryaha dhisidooda ay ka qayb qaataan. waxa social media laga sheegayo waa waali oo la leeyahay sodohday ma imaan karto gurigayga ama amarkayga la'aantiis iyo meeshaan gaarna waa fogaanay. marka gabadha u tanaasul iyadoo ay ku habooneed inaa hooyo guri u kiraysid iyo inta la socoto, yani u tanaasul. waxay ku tiri ilaa wa ilaa xaflad baa lagaa cazuumo way maseertay, maxaan ku idhahdaa ma baxaysid, u tanaasul, iska joog gurigaaga. kubadaha fiirsan ya akhi, iyada fiirso qalanjadaadaas maanta oo dhan ereyadaas iyo qalanjadii quruxda iyo qurayshadii haweenkay dumar ugu qayroonay qurub ka soo jirkayga qayb u degto qiimeeyay kalkacal ku abuurta laabtayda bla 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 maanta oo dhan u akhri. marka tanaasulku uu fiican yahay, waa in la isu tanaasulaa. arrin dhaqaalaha imaanaysa waa inuu tanaasushaa. baajidka waxay ku tiri ilaa wa ilaa shaqaalaan rabaa, waa tusaale, waa u tanaasuleysaa. يا أخي شقالة وشقيسو أو لغها ودقضو أو علان وسارتو أو تمها وسميسا هداء وإن قبلهنا الله سميها قبلهنا يعني استايلان مركي تاس وحي كمي تاهي وحيابها يعني المداراة ورسولك صلى الله عليه وسلم كما رينجري قرقيس رسولك صلى الله عليه وسلم قرقيس family problem كما وصل مرنين. يعني هذا كهر عائشة واتي مسيريس والرسول كيري غارت أمكم يعني أم سلمى يعني ما ركتي نرجع ذا الجبنايا حفصة سيدوك لا أريد هيسو محاكو هذا تنكلي رسول الله محمد يا للي هاي أري أو للي هاي أري وين أمهات المؤمنات أديك أنت جوكتا ولا مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونبري وأنكبر السيرة ده السيرة العاطرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو المداراة قبل هذا إناد كلنا ولادت وحيابا خلادات بدن إناد إسكين دا ترتد أو إصدقاء ميسيد ما هنا قرية مد اسمنا قبل أن نسيدو كلا إن دا ترتوه وياها عندما بسوشيال ميديا وحا بدن هبلايو محالو غفري هبلايو كليب بيسو جلسي أما حفلات بي آدي مرات قار كيسنا وحا دعدو قوب جوغ أنا أوها إن لو غفرو محاكو هذا وح أنا runtii taafi ah aan qiimo lahayn gabadhaas dhan oo hooyadeedii aabaheed aad ka doontay kharashku maaragtay uusan yareyn, ilaahay yani isku kiin calmaday oo ubad ay ku marka qaarkiis ragga Soomaali uma aaba yeelaan. marka isu tanaasulka waxa ugu weyn oo aan ku soo gabagabayn lahaa Soomaalideena ama hablaheena iyo raggeennaba aan rabaa inaan gaarsiiyo صبر أيوب وإني لهذان صبر كي نبي أيوب عليه السلام. علماء waxay sheegaan 18 sano inuu jirnaa 18 sano isagoo jirnaa oo xaaskiisa ay la ku faakacaysay saaxiibadii dad yar ku aghareen buu ilaahay wuxuu yiri anni massani ad-dur yani waxa itaabtay waa 18 sano yani nabigii jirnaa. marka ilaahayna waa uu ka ajiibay oo maaragtay caafimaad siiyay. marka sidoo kale waxaan xasuusinayaa qoyska haddaad aabbo tahay haddaad hooyo tahay xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam man taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayrun min. qofkii wax ooga taga allah darti wax ka khayr badan oo ilaahay ugu bedelaa. tusaale you are too late mana habboona nimanka Soomaaliyeed oo fadhi ku dirirka horta waxaan u maleynayaa wax badan way isbedeli doonaan clipkan markay arkaan. gabadhaada waqti hore akhi way ma way isqurxisay night dress ay gashatay yani way maaragtay cashay ku samaysay inaad la cashaysid inaad maxaan ku raada la haasaawdeed in adiga ball iyo football iyo Manchester iyo Heblow iyo fadhi ku dirirka ka soo tagay siyaasad. I know walaala qaar baan aqaana waxay yiraahdaan Cabdisalaam ay khayr baan ku rajaynay xilligii waxa la gaaray aan teleefankayga damin lahaa. wallahi xilligii teleefankiisa uu damin lahaa walaalkaas aan garanayo oo ilaahay dhaqaalana siiyey wax kale muusan ku mutaysan. wallahi gabadhiisa u ducaysay from scratch Nairobi markuu soo galay waxba ma haysan. lodge-ka xataa hotelka waa laga bixinaya maanta real estate uu dhisaa. marka gabdhaheena markaan guryaheena aadayno aan gelino silent ama aan gelino adaan awoodno mood ama aan gelino maxaa aan dhahno off. gabadhaada waqti la qaadan nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha wuu la qaadan jiray. 11 hablood ay oga sheekeynaysaa xadiith Abi Zar oo ay leedahay yani xilligii jaahiliga
rasuulka sal allahu alayh wasalam ma dhaha yaa caa'ish wax taafihi waayo waxaan nathina iga sheekeynaysa jaahiligii habla 11 hablood fariistay yay oga sheekeynaysa gabdhaheena sheekada ma ka dhegaysanaa horta maba hadli karta naa aamus naa fariiso waryaa ilaahay gacaliso wax yar ma kula hadli karaa gacaliso cuntadan afka ma kuu gelgelin karaa yani turkidan ka barta aniga very polite bishee sodaabimi wax ma ku weydiin karaa gaarigu kula saaran yahay wuxuu leeyahay yani ma furi karaa darishadan annaga waa iska furayna guriga ma soo geli karaa